ورحمة الله وبركاته كسروا تي في جا مدح بنان بي سي 24 تي في مقعد مستح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل ولا عد ما سنتي مقعد هو عبد الفتاح الشور علمي. عبد الفتاح. دوام بعد لسعودي أما مالك شرح هذا جمعيه ذلك مشاركة الناس الصومالية قالها رزارة على خيره. وحاول صاري ورصحافيات إني كسور كذا هالشيء سوماليلاند أي لقى شيء شركة دي بي ويل. uu ku tilmaamay waliba inay shirkadaasi tahay shirkad si Soomaaliya si tuugaaleysiya wixii uga saxaatay waliba wasaaru wuxuu sheegay uu yani haddana anagu saxaa haddana anaga na soo marin shirkad kasto anaga aan soo marin dhulka Soomaalidu ay degto ama Somaliland iyo sida uu hadalka u dhigay ilaa Soomaaliya waxba kama saxan kartaan ama wax horumar ay ku sameyn karaan oo anagu aanan ogeyn ma jiro marka adigu ka dareen ahaan ka muwaadin ahaan hadalkaas laba arrimood mid waa shirkadda DB Wall iyo heshiiskayna la gashay midna waa Soomaaliya anigu markaan kala qaado inta shirkadda DB Wall u gudbo shirkadda DB Wall waa layna maal gashan karaa waddankeena xaq baynu leenahay inaynu shirkada maal gashada keeno laakiinse waxaan u arkaa anigu iminka Ethiopia baart qayb ka tahay sida ownershipka ayay Ethiopia heshiiskii qayb uga tahay innaguna dawlad la aqoonsan yahay manhin mar haddayna ahayn dawlad la aqoonsan yahay waxa ahayd in heshiisyadeena marka horeba waxa la soo mariyaa international sida sharciga caalamku dhigayo waxa Soomaaliya la soo mariyaa wali Soomaaliya ka tirsanahay sanduuqa horumarinta Somaliland waxa soo saxay madaxweyne Xasan Sheekh MOU-gii kan imika laga hadlayo DB Wall Xasan Sheekh baa saxay haddayna indhaas ka tuureynaan dee gudmanac ku wareegaalsanayn collateral waxay naga la dawladda Soomaaliya laakiin imika waxay muuqataa Ethiopia inay collateral naga tahay dawladda Soomaaliya dee midnimada shacabka Soomaaliyeed way taagantay meel recognition ku helay oo la leeyahay aqoonsi buuxa ku hesheena ilaa hadda ma haysano haddii mar saxiix dhacay ee la soo heshiiyay ee shirkadda DB Wall intay mas'uuliyiinta Somaliland ay imaaraadkii tageen ay la soo saxiixdeen sababta Soomaaliya markii hore uga hadli weeday ee imika uga hadla taamahay Soomaaliya markii hore Xasan Sheekh bay ku beegantay dawladdu transitional period bay ku jirtay dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh uu saxaxay farmaajo wuxuu yimi isagoo aan joogin qadar yar baa ayuu la kulmay political crisis buu ka baqay wuu iska daayay imika agreement caadiga hala kala saxday memorandum of understanding bay markii hore ahay imika agreement caadiga baa la kala saxday mar hadday Soomaaliya aynu ka tirsanayna wali ixtiraaf qaadan ma runta soo sheegnaa miima ayna wali caalamka ka helin oo mashaariicdeeni inuu imanaysa soo saxayaan dawladda Soomaaliya inay ka hada shaqo bay leedahay ka shacab ahaan waxaanu aaminsanahay waddanka horumarka waddanka kama soo horjeedno haddaanu dhalinyarada iyo aqoonyahanka waddanka kama soo horjeedno horumarka waddanka laakiin waxaanu ka soo horjeednaa wax kasta oo sovereignty-ga waddanka dhaawac ku keenaya Ethiopia sida ownership ay u saxaysaa ay partner uga tahay DB Wall u saxaysaa haddii la doonayo subcontract la siiyo innaga inay naga si qaatay customer bay noo tahay innaga laakiin inay innaga share inaga qaadato ay share inala mida ay qaadato annagu fikirka waanu ka soo horjeednaa ma aaminsanin haddii ay wax sax tahayna waxaan doonaa sifo sharciya ka in looga dhaadhiciyo inuu madaxweynuhu details ka bixiyo in baarlamaanka la hor keeno sharci dejinta la hor keeno in si caadi ah loo ansixiyo in dadka loo soo bandhigo ilaa hadda waxaad moodaa wax kalba meel madow lagu huursanayo oo shacabkana bar laga qarinayo saxaafadana bar loo soo deynayo marka waddankani annagu ma og diplomatska waddanka waan ogolahay ka dhalinyaraan wasaaruhu hadalkaa uu yidhi shirkaddu ilaa annaga ra'iisul wasaaruhu hadalkaa uu yidhi I think waxaan qabaa inuu ku saxsan yahay maxaa inoo diidaya inay Soomaaliya gasho Ethiopia ma taas ma suuragal ba Soomaaliya wali waynu ka tirsanahay taas shaki kuma jiro Ethiopia way saxaysaa kii Soomaaliya oo diidaysa kana wada golaansa marka anigu hadalka ra'iisul wasaaraha sax baan u arkaa because of waxa weeye wali wadan aynu ka tirsanahay baynu nahay iyaga wixii international law la soo mariyaa international agreement aynu galayna iyaga la soo mariyaa iyaga inoo saxiixa ka baqan mayno dhalinyarahana iyo ka aqoon-yahanana ka baqan mayno wixii wadanku u baahan yahay iyo dhaliishiisa in laga hadlo dadkiina waxaad moodaaba inay ka baqanayaan inay Ethiopia caynkana Ethiopia sidana war Ethiopia wadankeenan jaar baynu nahay jaarnimada ku ixtiraamayna dhaqaalaha ugu badan Ethiopia innaga imika marka la eego dhaqaalaha ugu badan Ethiopia innaga naga saxaraysta qaadkeeda maxaynu kaga bedelanay inagu ilaa hadda la isma weydiin waxaanu kaga bedelanay aad thank you very much ama asante clip kaasan doonayaan adigu soo dirto WhatsApp